saddex xidigle Cabdiraxmaan Xisi Cabdiraxmaan oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo ku sugan deegaanka Godaale ee Xaysaman Nugaal ilaa Taliix ayaa 100 ciidan ah oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya tababar uga soo xiray oo socday muddo 6 bilood ah. tababarkaasi oo uu soo gabagabeeyay sargaalka ayaa si madaxnimo ah oo iskiisa ugu baray cilmigii iyo aqoontii horay loogu soo tababaray. saddex xidigle Cabdiraxmaan Xisi Cabdiraxmaan uu ka codsaday dowladda federaalka kumeel gaarka Soomaaliya madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ciidamada xoogga dalka Soomaaliya boqolkan ciidan ee u taagan calanka Soomaaliyana haysta doonayaan in ay ciidankoodii u shaqeeyaan oo tababar iyo qalab wixii ay dowladdu ugu talagasho ay siiso. wuxuu sheegay in xildhibaanada ka soo jeeda deegaanadaasi iyo aqalka saraba ka codsaday in dowladdu ay gaarsiiyaan gacanna ka siiyaan sidii loo qaramayn lahaa ciidankani. isagoo ka hadlaya saddex xidigle Cabdiraxmaan Xisi Cabdiraxmaan oo markaasi ciidamada tababaray hor istaagana wuxuu yiri waraxmatullaahi wabarakaatuhu. anigoo ah sarkaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed magacaygu leeyahay Cabdiraxmaan Xisi Cabdiraxmaan ka tirsanaa saraakiishii ka mid ahaa gaaskii 14 Oktoobar ciidanka danab. waxaan sameeyay ciidanka 6 bilood oo koonsa aan halkan ugu qabtay tababarkiisa uu dhamaystay lagu soo qulfaya tirtay. wuxuu doonayaa ciidankan inuu ka mid noqdo xoogga dalka Soomaaliyeed uu ka mid noqdo oo uu shaqeeyo dadkiisa iyo diintiisa. sidaa daraaddeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan ku codsanayaa ciidankan doonaya inuu ka mid noqdo ciidanka Soomaaliya xoogga dalka Soomaaliyeed inuu arrintooda tixgeliyo, inuu qiimeeyo, inuu wax la qabto, inuu la shaqeeyo, inuu ku daro xoogga dalka Soomaaliyeed inuu agabkay leeyihiin dowladda uga soo jaro, hadday daawadii tahay, hadday tahay tuutahoodii, hadday hubkoodii tahay, hadday agabkii ciidan lahaa tahay. waxaan ka codsanayaa ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre ciidankan wuxuu rabaa inuu ka mid noqdo xoogga dalka Soomaaliyeed. 6 bilood oo koorsa baan halkan ugu qabtay. koorsadina way dhammaysteen meesha la yiraahdo Godaalo. koorsadina way dhammaysteen. waxay diyaar u yihiin inay ka mid noqdaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda si daacadnimo ay ugu adeegaan. ra'iisul wasaare waxaan ka codsanayaa ciidankan inaad tixgelisid, inaad arrintooda qiimaysid, in aad wax la qabatid, in aad u qabatid wixii ay ku leeyihiin dowladda Soomaaliya oo ciidan ku leeyahayba, hadday tahay caafimaadka, hadday tahay hubkoodii, hadday tuutahoodii tahay, agabkii ciidan leeyahay. waxaan ka codsanayaa taliyaha xoogga dalka Mr. Madaxweyne Yuusuf ciidankan wuxuu rabaa inuu ka mid noqdo xoogga dalka Soomaaliyeed. taliya waxaan rabaa inaad ciidanka tixgelisid, arrintiisa qiimaysid, dowladda aad uga soo goysid agabka ay ku leeyihiin waxqabadkooda, hadday tuutii tahay, hadday tahay wixii agabkii ciidan lahaaba. waxaan ka codsanayaa ammaanduulaha xoogga dalka Soomaaliyeed ciidankan wuxuu rabaa inuu ka mid noqdo xoogga dalka Soomaaliyeed. wuxuu sitaa astaantii Soomaaliya, wuxuu ku dhaartay inuu ku dhinto dalkiisa iyo diintiisa iyo dadkiisa iyo calankiisa. wuxuu rabaa inuu ka mid noqdo dowladda Soomaaliya ciidankeeda. ammaanduule waxaan kaa codsanayaa inaad tixgelisid ciidanka, inaad wax la qabatid, inaad agabka ay leeyihiin la qabatid, in ay ka mid noqdaan dowladda Soomaaliya, inaad tuutahoodii dowladda meel uga soo saartid, inaad adeegoodii caafimaad meel uga soo saartid,
Soomaaliyeed oo magacaygu yahay Cabdiraxmaan Xirsi Cabdiraxmaan koorsadaas waxay ku dhamaysteen meesha la yiraahdo Godaalo oo hoos tagta gobolka Sool Jaallo Wasiir waxaan ka codsanayaa ciidanka xuquuqda ay leeyihiin ciidankaas waxay codsanayaan inay ka mid noqdaan xoogga dalka Soomaaliyeed inay dalkooda iyo diintooda iyo calankooda iyo dadkoodaba u shaqeeyaan bay diyaar u yihiin way diyaarsan yihiin Jaallo Wasiir waxaan ka codsanayaa xuquuqda ay ku leeyihiin dawladda Soomaaliya ee federaalka madaxweynaha inaad gaarsiisid ra'iisul wasaaraha aad gaarsiisid taliyaha xoogga dalka aad gaarsiisid amaanduulaha xoogga dalka Soomaaliyeed aad gaarsiisid taliyaha booliska Soomaaliyeed aad gaarsiisid saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aad gaarsiisid in ciidankaasi agabkiisa uu leeyahay oo dawladda ku leeyahay hadday mushaharkii tahay hadday agabkii dharkiisii iyo kabihiisii iyo rasaastiisii iyo hubkiisii ay tahay ay helaan Soomaaliya Soomaaliya Egypt وبالله التوفيق